waxaan ahay nin gacan galay god cadaawo loo qoday waxaan ahay gabar dhalinyaro oo guurka waalidkeed u dooreen aad iyo aad ayaan u dhibaataysanahay daahi aan maanta soo gato ayaa layga fuqsadaa habeenka saqbarka ayaa lay dilaa darisku ooyinteeda iyo dilkayga ayay ku soo kacaan walow hadda ay la qabsadeen aysan ba ii soo kacin waxaa lay weydiiyaa intaan noloshan ku noolaa doono 25 jirkii waxaan ahay 50 jirka way ekaatay ilinteedu way qubatay indhahiigana ilintii ayaa ka dhamaatay nolol adag ayaan ku noolahay gabar kastoo Soomaaliyeed ayaa waxaan rabaa oo rabta inay easy gurigeeda ku dumiso ee gabadhan wali guursan ay rabta inay guursataba inaan waxa maanta ugu dhacay uga digo soo dhawaaw koob shaax sokorta ku yartaa soo qaado sheekaas qaraarka badan waa qisada 20 jirkii 50 jirka way ekaatay hordhaceeda hayga degdegayna soo dhawaaw leegtana noo reeb channelkan waa channelka hablaha Soomaaliyeed taagedkeena waa 100,000 ka qayb qaadaysan ku gaari lahayn sida noloda baaldegtid maalinta aan guuleysano soo dhawaaw muuqaalkan hadda noo bilaabanaya ay waxay gaartay heer ay ka harto una sheegto ay weydiido aabahay muxuu uga duwan yahay caruurta kale aabahood muuqaalka maanta gabdhaha Soomaaliyeed ilaahay weynaa waxidka waxaan ka baryayaa inuu ilaahay dulqaadka iyo samirka u siyaadiyo muuqaalkan wuxuu noqon doonaa gabar Soomaaliyeed oo tal rabta nagu yahay waxa kale uu noqon doonaa insha Allah taala tusaale aan gabdhaha ku tusaaleeyay tal kasto gabar kasto ila talin dhahaysana dhiirigelin ayaa ku hoos jirta haddaba muuqaalka dhameyso koob shaax sokorta ku yartaa soo qaado leegtan anaga baqiil waxa ahay gabar aad iyo aad u dhalinyaro lana soo kortay labadeeda waalid guriga waalidka ayaa ku soo koray waxaana ahay dheeman la koolkooliyay oo barwaaqo ku soo kortoon culays iyo dhibaato soo arkin walow aanan ahayn dadka maalinkaas dabkooda shiday oo nolosha heerka sare ku nool waxaan ku noolay nolosha tabaqada dhexe ama ta hoosaba laakiin waxaan ka qanacsanaay nolosha dhan waan haystay adduunyada dhan sababtoo xitaa waxaan ahay gabar urdina oo hooyadii aabay la nool farxad iyo jacayl ku soo kortay maalinta aan qoorta keenay aan soo weynaaday ay hooyaday aabay waxay ii go'aamiyeen guur anigu aan taladiisa lahayn tusaalihiisa keensan lana hadlin kana soo shaqeyno iyagu ay ka soo shaqeeyeen waan asmacay waana aan yeelay waana aan adeeca waalidkay waana aan guursaday guurkii ayaan guursaday ninkii ayaan u guri tagay bilii ugu horeeyay ee aan guursaday waxaan la noolaay oo leeyahay dajiyay sodohday iyo sodogay ilaa maantana waa la noolaa ilaa maantana gees ayaan guri uga noolaa haddaba sodohday iyo sodogay bilaa war way soo dhaweeyeen inkastoo bulshada kala kulmay inuu ninkaygu yahay nin muddo qadaraadka isticmaala balwadna leh dhag jalqo ma siin oo iska indhatire dhaxdana waxaan u xirtay inaan gurigeyga dhaqdo oo farxadda hooyaday aabay aan kula noolaay mid lamida aan caruurteedii ninkayga sii uur koobaad ayaan yeeshay alxamdulillah noloshiisa hal mar ay isbedeshay ninkii aan guursaday ee waalidkay igu soo dareen wuxuu noqday nin balwad leh balwadda waxa laga yaabaa balwad markaan ku yiraahdo balwad inuu markiiba kugu soo dhaco sigaar intaad Soomaha balwada taas ma gabadhan ay ka cabanayso balwadaan waa balwadaha dhaaftay waa dadka wadamada markii aan joogno narkumaan ka dhahno ama chokoraha la dhaho darbiyada jiifta camal ninkan waxay tiraahday balwada ay isticmaalaa sanadadii ugu horeeyay ama bilooyinkii ugu horeeyay ama waqti ugu horeeyay sad u taqaanidba wuxuu sameey jiray wuxuu imaan jiray saqbarkii ama xilliga dhexe guriga oo waa bariga wuxuu sameeyay guriga markuu imaado wuxuu imaanahay asagoo cabsan oo xad ka dhaafsan ونن أقولين ناكتيسي يولاديسي عروتيسي قولك مركو صاقلو حكوسو قلا يترقيلو حكوسو قلا بوق وإيقع عن قادة وإيدلا إلما هو وقع عن قادة دباتاء تيادو بدن ينكو قبي دباتا سيام ربر عدايدي وان بحا هو يدي يابي يالسو هلا حيقول عن هو يسامر وقولك يقدقو سامر هو قوير عداي آدي عداي حالتي وات كاتي دباتا بدن يندريم دور عرونا دبكا ينكو دالي نينكي وبيلي مسيو جوجل كم هيستو هذا الوناسن كم هيستو قرب يعاومات كم هيستو عرورتي إذا أنا جاي أوشقيست صدقه ذي صدق إياه لد الجناهي عرورتي إذا أنا أوشقيه بيلكو إذا أنا كانوا بيل كان مالين تودن أسود بعتودهم كانوا أنا مرك قار عرورتي إذا قبل قدرك يجوا حرينهين أيوة مركو هبين كيمادو أما قلبت أو ساق عقمر وجركي سكبح أيوة حوق إيجا قاطع داهي أن ساقده إيه أنا ما أقول لك بلاد يسوق رحصو صبح الدم ووفق صدقون أو قطع دكسيada cuntada iyo madaayo tarmuusada barafka iyo madaayo dahab iyo dunya kaloon haystana warkeeda badaa intaas anoo ku nool gabadhii daawanaysa waxa ay dheer gacan qaad hadal xumi ay bahdil umada daris korinay wadogta dariskay waxay dhahaan habar yar iyo abti adeer xaaladan goorma ilaa goormad ku noolaa doonta kowda habeenimo labada habeenimo ooyinteedii salalkeedii iyo cabsideeda dariska way ka daalaysa ugu soo baxayeen oo hadda ciidaba iyo ma soo baxday igama qabato habeen hadan guriga ka xirto
oo albaabka aan ka laabto u diido inuu soo galo sodohday ma ogola inuu gurigeeda gees ka socdo waxay leedahay gabdhahayga ayaan uga cabsi qabaa nafteeda ayaan uga cabsanayaa caruurta ay uga kicin oo iga salilina adiga ha ku dhibo ha kula joogo sida anigu inaan dhibka iyo ooyintii dilkaan dhaxal u leeyahay hooyaday markaan ugu dambeeyay xaaladda u sheegay waxay tiri hooyo gurigaaga waa lagaaga baahan yahay iska soo noqo laakiin aniga ayaa waxaan ku fikiray hooyadii dhibaatada ogahay kugu soo korisay oo ayadu nolosheeda kuu soo xamaalaysay meed maanta ubadkaaga kurgeynaysa xamdiye waxaan ahaa 20 iyo dhowr jir laakiin waxaan u ekaa 55 jir ma farxo meesha gabdhaha ficayo qoslaan ma qoslo waan ooyaa hoosna waan u ooyaa saqbarkana waan ooyaa markii la dilo xanuunkiga bato waxaan ahay hooyo dhibaataysan koow waxaan kaa codsanayaa duco maadaama aad tahay gabar u soo kacday gabdhaha Soomaaliyeed labo waxaan gabdhaha walaalahay ka codsanayaa duco iyo garab istaag iyo faataxada iyo Soomaaliya ilana soo taliyaan go'aan waan gaari waayay meelna waan u dhaqaaqi waayay ooyintii ilmadu waa iga badatay gabadhayda yar waa dhowr waa adiga da'deeda mar la sheegay iskuulayay gaartay iskuulkiina way ka soo fariisto waxaan u maleynaa xamdiye markaa muuqaalada dhageystay inay gabadhayda yartaa depression iyo stress qaaday waayo waxay imid ku soo kacdaa 2 ama 3 habeenimo ama 4 aabaheedu hooyadii dilaaya waxay aragtaa aabaheedu dhacdhacayo darbiyada ku dhacdhacaya waxay aragtaa aabaheedu hooyadeed caynaya waxay aragtaa aabaheedu gogasheeda gadanayo xadaaya way dhibaatootay iskuulkana way u sheegtay dhibaatada guriga ka jirto haddana iskuulka ay ka soo baaqatay heer waxayna gaartay ilmaha qeyrkeeda ila ciyaari weydo way caruurtu weydiiyaan muxuu aabaha xilliga dambe la qayliyaa hooyadaas maxay loo eedaa hadda ay ugu darantay wuxuu bilahan bilaabay inuu sida soo hayeen oo naagaha kaamka ku jira iyo dadka kaamka degan oo iskala seexdo waxaan ka cabsi qabaa inuu cudur ii keeno waayo xalaasha iyo xaaraantu uma kala socno noloshaas ayaan ku noolaa qurbana waa joogaa oo dalkayga hooyo ma degani wali hooyaday aabahay meel iga fog joogay abaa ii soo duceeya ogaadana caruurteeda aniga ayaa mushaarkooda soo dhaqda ama dhaqo ama dhagax soo jabiya inta aan soo dhaqana soo sameeyana marmarka qaar ma xataa caruur dabka u saar ayaa xoog leegaa qaata waan qeyrooday qisadan dhowr maalin ayaan haayay waxaan soo xasuustay waxaa jiro gabdhaha Soomaaliyeed oo raba inaan u sheego waxa laga yaabaa in maanta ay daawanayso gabar ninkeeda saluugaysa oo nacday ay fur leh laakiin aanan gacan qaad ku qabin gogol xamana ku qabin biilaan aan ku qabin ayna aan ku qabin laakiin wax yar oo naago ila shukaansada ama naago ila guursaday ama rumaatigu sii waay maanta gurigeedu dimi rabta waxaan aad u jeclaalahay in janalkan gabar kastoo Soomaaliyeed ku soo xirmato waayo waxaan aaminsanahay dad badan oo guryahooda badbaadi doono aniga xamdiyo inii jeedin hor fadhiyo ayaa waxyaalo badan ogaado nimcahan haysto alxamdulillah marka qisooyin gabal akhriyo caafimaadkii nimcada kamid marka gabar caafimaad ka cabanaysa marka gabar awlaadaan ka cabanaysa marka gabar nin gacan qaad iyo bahdil ku hay ka cabanaysa aad iyo aad ayaan qalbiga ii xanuuna waxaana iraa alxamdulillah kuma naan gabdhood ayaan dhibaatada maanta haysan laakiin daliil rabo in guryahooda ku dumiyaan kuwa badan ay ku dumiyaan ayagoo qurbaha yimid waxbarasho free helay ilmahooda baahi uga baqeen caafimaad darro uga baqeen madfac iyo dagaal uga baqeen dil oo nin dil ay bahdil uga baqeen ayaa haddana gurigeena waxaan ku dibinaa si aayaro sibiqa asaan qobameynaa haddaba gabaray dhagtaada ku taagnaato qisa kastood aragtina amri qaado soo qaado biliis oo ku barayaya albaabka la soo garaacay sumay albaab waxaan soo xasuustay aasaaskii dumar aasaaskii keemay anigu dumar baan ahaa aad iyo aad ayaa uga xumaa horta gabadhan Soomaaliyeed dhibaatada haysata annaga nicmada qaadasho ayay noo tahay abay macaan nolosheedii gabar Soomaali kula ma tarin gurigaaga go'aanka gaar laakiin adaa hadda maanta ku leeyahay ama ha qaraaraat ama ha macaanaato ninkaas ninka raacay mana ku qabo mana kugu xirnaba sababtu waxay tahay nin aan salaad dukeen ee balwad leh ee qamri cabaa ee zina aan ka dhowrsaneen sad sheegtay u maleemaa inuu xarig kugu xiran yahay markaan waxaan ku dhiilahay maadaama aad adigu awlaadaada u shaqaysatid adigu aad biilkaadii badarkooda aad raadsatid yaa ninkaan oo waxaan caafimaad darro iyo xanuun aanan ahayn oo maanta kugu soo siyaada aysan jirin caruurtaadina maanta depression iyo stress heerkaas oo gaarsiiyay abay macaan anigu waxaan arkaa xabsi ayaad ku jirtaan kontanaamid bay ayaad ku jirtaa inta ka baxdid qurxay oo gooni u degtid yaa xoroobo
caruurtaada korso. waxaan kaloo rabaa inaan waalidiinta Soomaali u sheegaa waxay tahay gabdhaha maalintaad guurisaan oo aad gurigeeda geysaan maxaad u hartaan maxaadna u ogeyn inay gabadh bahal aad u geyseen ina nin fiican u geyseen maxaadna gabdhihiina uga warqabin oo intaad god guridina u dabooshin uga soo hartiin gabadhu guriga markay joogtana ninka shaqaale inay tahay waarid marka ninka u geeyina in la dilo iyo in kale ma kala jecel wax kasta waxa igala weyn heblaayo waa la qabaayo guriga ay leedahay dhahdin laakiin guriyaha gabdhuhu xanuun iyo stress iyo depression ay ku qabaan marka waaridku waxaan leeyahay gabadhaada inta ay kula nooshahay ka warqabka aad ka warqabtid ka badan ka warqab maalinta guri la geeyo gabadhaana waxaan leeyahay abaayo nolol ka raacimaysa inta aadan ku waalan oo awlaadaadu aabalaanta oo maanta hooyo la'aan ka noqonin intaad gooni meel u tagtid yaa abay macaan awlaadaada korso ilaahayna waxaan kaaga baryayaa dhibaatada aad soo martay inuu ilaahay farxadeeda ku siiyo waana aan ku soo duceynayaa gabar kasto Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay ku soo duceedo wixii talo ay tusaaran ay committee kugu siido insha Allah guul ayaan ku rajeeyaa meel aan samiri u dulqaado ku dhaa uma jeedo meel aad ku waal rabtid ee aad ku bahdilantahay ku dhibaatantay u jeeda wax anigu aan qaada lahayn adigana ku qaadi maayo naftaada awlaadaada ka fakar adoo guriga hooyada joogo ayaad soo shaqeey kartaa oo caruurtaada ku korsan kartaa dharka inta xirxirtid guriga hooyada ku laabo waana ku soo duceynayaa nasiibka iyo guushana cidna lama uusan dhalanin laakiin way ku iimaanaysaa ilaahayna wuxuu yiri inna allaha ma'a saabiriin kuwa samra ayaa macooda ahay insha Allah ilaahay waxaan kaaga baryayaa noloshta ugu quruxda badan ilaahay ku siiyo awlaadana ilaahay ku koriyo ilaahayna qalbiga ku qaboojiyo salaatul istighfaar duko ilaahayna tala saaro kaasumro ku qabay culimada weydii waxaan rajeynayaa ma bilooyin kadib adoo faraxsan oo sida habeen uu ooyneen inaan kula kulmo aad iyo aad qalbiga u taabatay lambarkaagan waan xareysana kuma iloobi doono waxa jir dhowr gabdhood qisooyin ii soo gudbiyay oo lambaradooda aan qortay oo aan la xiriiro oo aan weydiiyo xaaladooda iyo marxaladooda meesha ay marayso ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay ku naxariisto dambigaana alla dhaafo awlaadana la ku koriyo qalbigana la ku qaboojiyo قول أيام كورة تينا جنسيتي صوص مرتيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقال هالكلام ينوجو أجيها أنت هذا إلى سجارتي لايك تظن إيرين هيتين سيشير قريب مقالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.